السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالاي دمانتين سلام كدب sheekadana maanta idin la wadaagi doono waxa ay soo diray wiil Soomaaliyeed waxaan idin ka rajeynayaa talooyin wanaagsan inaad siin doontaan wiilkan walaalkeena waan idin ku bogaadinayaa talooyinkiina aad ka qiimaha badan ee aad ku bixisaan fikirkiina iyo waqtigiina wax la isisiyo waxa ugu wanaagsan talo markasta waxaan jeclahay inaan isxasuusino dhowrida dareemada dadkana la wadaagay qisooyinka ay la kulmeen sheekadana waxa ay ku bilaamaysaa sidan gabadh ayaan in muddo ah dusha iska naqaanay waxaan iska baranay Instagram sawirradayda ayay comment iska bixin jirtay ciwaanadayda oo dhan ayay igu soo darsatay maalin maalmaha kamid ah ayaan safar fiilana u baxay kadib waxaan Snapchat-ka soo dhigay video ah inaan baxayo kadib waxay dhahday miyaad iga qarsatay safarkaagii miyaanan walaasha ahayn waad iska baxaysaa miyaa si canaana ayay ii tiri waa ka raali geliyay haye ayay idhahday waana ima salaamaysay waxaan ku yiri waan kula soo xiriiri doonaa markaan Finland tago isbuuc gudihii ayaan ku soo laabtay si kadis ah kadib way soo wacday way i canaanatay mar kale ayadoo leh maad ii sheegtid inaad soo laabatay haddana waan raali geliyay intaa kadib cabaar baan yara kaftanay maalinkii dambe ayay Instagram-ka soo dhigtay sawir aan leeyahay waana igu soo taagaraysay waxayna ku soo qortay hadallo amaana intaas oo dhan anigu waxba ma dareemin walaaltinimo oo kaliya ayaan u haystay inay inaga dhaxayso maalin dambe ayaan Facebook-geeda galay si aan iyana sawirkeeda u soo saaro waalka oo aan ugu abaalgudo maadaama ay iyaduba sawirkayga amaan dul dhigtay isla markiiba waa ila soo hadashay taleefanka ayaan kala qaadanay taariikhona soo maray ayaan ka wada sheekaysanay qof walba wixii hore u soo maray inta kadib ayaan dhahnay ka waran hadaan inagu sheeko bilaabano waan isku afgaranay waxay ii sheegtay ilaa 5 bilood inay dusha sare iga jeclayd oo gabdho ay saaxiibo yihiin ay kula taliyeen inay ii sheegato balse aysan ii sheegan oo ay iga xishoonaysay waxay igu tiri ballaniga qaad haddii xiriirkeenu go'o inaan walaaltinimadeenu go'in waan ka ballan qaaday waqti badan ayaan wada qaadanay aad baanu isu jeclaanay 9kaba waanu wada hadli jirnay ilaa aan ku dhaho iskuulkaagii aad igama tagi jirin aniguna saaid baanu jeclaaday jacayl xad dhaaf ayay igu abuurtay siday ii jeclayd si ka daran ayaan u jeclaaday muddo markaan wada soconay ayay iga codsatay inaan iskuursano laakiin waqtiga ayaa igu adkaa sharci ma haysan iyo shaqo fiican toona ana waxaan doonayay inaan si sharaf leh reerkooda uga doono si ay labada reerba u faraxsanaadaan anaguna nolol farxad leh aanu u galno inkastoo iyadu ay rabtay xaalad kasta oo aan ku jiro inaanu isguursano reerkeedii ayay i bartay aad baan u jeclaa iyaduna si ka daran ayay ii jeclayd wax walba waanu sheegay oo dhibaato ah inaan sharci lahayn inaanan shaqo hayn laakiin way igu jeclayd wax kasta waxaase jirtay arrin weyn oo aan ka qariyay bilowgii taasoo markasta aan islahaa u sheeg markasta oo aan wada sheekaysanayno waa igu soo dhici jirtay inaan u sheego haddana waa igu adkayd arrinta iigu dhibka badnayd ee aan bilowgii ka qariyay waxay ahayd inaan ka qariyay inaan handicap ahay oo luka go'anahay kadis ayay igu noqotay oo gabadhu iyada i jeclayd markaan sheekada bilaabaynay markii dambena maalinba maalin ayay ii dhiibtay aadna waan u sii jeclaaday sidaan u lahaa talow maxay dhihi doontaa haddaad u sheegto talow miyay kaa tagi doontaa farxadeeda ma weyn doontaa mar walba waxaan isdhahaa aad u sheegtid xilli munaasib ah markaan isdhaho u sheeg ayaan haddana waxaan isdhahaa armad farxadeeda iyo qosolkeeda weyda qofaan aad u jeclahay oo aad ii jecel ayay ahayd lugta waan ka qarin jiray inay dareento inaan handicap ahay waayo markaanu kulanno waxaan iska ilaalin jiray inaan isku soo dhawaano anoo dhowraya diinteena iyo sharafteedaba lugtana waxa iigu jirtay lug artificial ah oo waxaan ahaa nin caadi ah oo soconaya oo dadkiisa wax la qaybsan kara maalin maalmaha kamid ah ayaan ku soo hadal qaaday hadii qof handicap ah aad jeclaatid maxaad samayn lahayd sheeko kale ayay ii gashay oo ku saabsan wiil indhool ah oo Mareykanka jooga iyo gabadh Soomaaliya joogta oo hawada iska bartay kadibna isjeclaaday oo gabadhaasina ay wanaajisay wiilkaasi indhoolka ah waxayna idhahday sidaas baan samayn lahaa waayo haddaan sidaa darteed ku naco anigaba ilaahay uu isiin karaa ilmo handicap ah runtii hadalladaas niyadda ayaa iigu degi jirtay
marar badan ayaan ku dhahay arrimo badan ayaan kuu sheegay laakiin mid kale ayaa jirta oo ka weyn waxaan aan kuu sheegay oo dhan balse maalin ayaan kuu sheegi doonaa markay igu tiraahdo maxay tahay arrintu ii sheeg ayaan haddana ka cabsadaa oo meel kale u saaraa ama sheeko kale ayaan uga sheekeeyaa waayo waxaan ka cabsanayay waxa dhici doona waxaa soo dhawaatay xilligii guurkeena oo 3 bilood ilaa 4 bilood ayaa ka dhiman waxaan bilaabay shaqo waliba waxaan aad u raadiyay shaqooyin adag si aan u helo lacag aan gabadha ku guursado ayaantii dambe ayaa anoo shaqaynayay maalinkaas oo dhan ayaan xilli dambe imaaday oo habeenkii ah taleefanka ayaan ka wada hadalnay waxa idhaaday xagee jirtay waan shaqaynayay ayaan ku iri laakiin arrintii ayaan kuu sheegayaaye isdeji oo si fiican uga soo feker kadib waxaan dhahay waxaan ahay handicap lug ayaana iga go'an way naxday waxayna i weydiisay halkee ka go'an tahay lugtu bowdada ayaan ku dhahay kadib waxay i weydiisay taariikhda iyo sida lugtu iga go'day waan uga warramay aniga oo yar oo 8 jir ah ayaa gaari iga jiiray ayaan dhahay intaa kadib ka soo fikir ayaan ku dhahay 2 casho ayay ka soo fikiraysay labadaas cashana ma wicin iyana ima soo wicin waayo anigu waxaan ka baqayay jawaabteedu waxa ay noqon doonto iyaduna fikir iyo warwar ma seexan kolley arrintaas ayaa dib ku noqotay 2 casho kadib ayay isoo wacday waxay dhahday walaaltinimo ayaa naga dhaxaynaysa waan qaracmay waxaan dhahay hadalladaadii macmacaana ma been bay ahaayeen markii aan hadallada ku sarbeebayay ee aan ku lahaa nin handicap haddii aad jeclaato maxaad samayn lahayd soo adigii hadalka ii qurxinayay maanta anaa si dhab ah kuu jecel adna waadi jeceshahay ma ihi qof dhulka yaala waxaan ahay nin shaqaysan kara darta ayaan shaqooyin u raadiyay waxaan ahay nin rag ah oo wax kasta kuu samayn kara waxay tiri waan iska kaftamayay markaan hadalladaas ku lahaa haddana walaalo ayaan ahaanaynaa dadka qofkii wax kuu tara lacag kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada si ka diiran ugu celi si ka diiran ugu celi intaa kadib baan anna ku iri ka waran haddaan caafimaad qabo oo aan kula kaftamayay haddii wiil kale ama aniguba aan dhibkaas qabi lahaa soo sidaas igama tagteen qof kale oo handicap ah ayaad maanta murugadaas badi lahayd haddii uu sidaan kuu jeclaan lahaa waxaad maanta ii caddaysay inuu jacaylkaagu caafimaadka yahay oo aad caafimaadkayga jeclayd balse dadnimada kale aysan qiimo kula lahayn jacaylku ma handicap markaas ayay qaracantay oo i dhahday maxaad iigu ciyaaraysaa walaal caadi iila hadal anigu waan ku jeclahay intaas kadib ayaa waxaa ii caddaatay inay i jeceshahay laakiin ay curyaannimada igu nacayso kalida noole kuugu jecel naxdiniya maxaad nabaaru la rabtaa maqsiibaa jiri naxafalin walaal maqsiibaa jiri naxafalin walaal رميا حديقة كونغل مطاقيا أنا مركيغا أيا وحان دهاي وان كسو فكريا أنو أيسان إيغا أهين حمان لكن هذا الكيدي أيان حسوسينيي سيدا وإي حنوشيي كدب وان كآموسي قبل حال كيغا أغيد oo aanu dhowr sano isnaqaanay ayaan u sheegay waxa dhacay waxaana ku yiri walaal u tagbal oo wax fahansii way u tagtay waxay ku dhahday maxaad ku diidaysaa wiilka waa ninkaas shaqaysanaya ordaya qof la mid ma arkaysid sida uu ku jecel yahay ee uu ku qiimeynayo waa run ayay ugu jawaabtay waana jeclahay
qof ii dhaamana ma helayo dhaawacyo hore ayuu ii ilowsiiyey waxayna gabadhii ku soo qancisay waan la hadli doonaa gabadhii ayaa iiga warrantay sheekadii dhex martay laakiin ima aysan soo wicin anna waan iska aamusay waxaan is idhi balukaadii ilaa inta ay degayso maalinkii dambe ayaan wacay balse way igu dhegaysatay markii saddexaad ayay iga qabatay maxaa xal ah ayaan ku idhi walaalnimo ayaa inaga dhaxayn kartaa ayay idhahday anna waxaan idhi waan ogahay inaad jeceshahay mustaqbal iyo guur ayaan taagnayn wax walba waan soo dhammaynay intaan ku jeclahay waad og tahay wax walba waan kugu qaadanayaa ayaad dhihi jirtay arrintaa waxaan kaaga qariyay waad ogeed inaan mar walba ku dhihi jiray arrin baan kuu sheegayaa balse mar kasta waxaan ka baqayay inay tan oo kale dhacdo walaalay maxaa dhacay maya ayay dhahday kulli ruuxii damiir leh dabcigiisu noolyahay dadnimada yaqaana dawgu kama habaabo dawgu kama habaabe dadka qofkii wax kuu tara dacad kuugu hagar baxa kaga doona meel adag wuxuu galay wax doorsada si ka diiran ugu celi 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 markaas kadib ayaan ana ciwaanadeedii oo dhan blog saaray meelahaas ayaan ka maqlaa inay wali i jeceshahay gabadh aan si walaaltinimo ah isu naqaan ayaa iiga sheekaysay inay wali i jeceshahay iyadii wali waa isku buuqsan tahay aniguna waan isku buuqsanahay waxaan sameeyo ma aqaan gabdho badan waan soo shukaansaday laakiin waa gabadhii ugu horreysay ee niyad jab igu riday inaan doonto ayaan qorsheynayay si sharaf iyo cisi leh farxadeeda iyo dhoola cadaynteeda ayaa ilays ii ah waan meherin karay markay ilahayd wax kasta waan kugu rabaa laakiin dhanka wanaagsan ayaan la rabay maantana xaaladayda ilaahay uunbaa og ila taliya maxaan sameeyaa عاليانك دونيدا اديكما يوارتي عديو اسكدونو نفسي وعوانو وعلي يقولوا فوق ادلكما دحاي نفسي وعوانو وعلي يقولوا فوق ادلكما دحاي عيري يا سيدي إنه قدرك قومن أمريكا يا سيري وعدي أني قوي بيد عمك